kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wararka qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah shirkii lagu qabtay magaalada muqdisho ee u dhexeeyey dowladda xilgaarsiinta iyo mucaaradka oo qarka u fuulay in uu fashilmo iyo wejigiisii koowaad oo soo dhammaaday. maxaa maanta la isku qabtay? maxaa lagu kala aragti duwanaa? maxaa dooda ugu badani ay ka taagnayd? barnaamijka xulashada wararka ayaan idinku soo gudbin doonaa. sidoo kale shirkaasi oo ay diideen Jubbaland iyo Puntland oo ka hor yimid kuna eedeeyay dowladda Turkiga in aysan dhexdhexaad ka ahayn shirka ay u qabanayso mucaaradka iyo fila Soomaaliya ayna garab siinayso madaxweynaha madaxweyneedku ka dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud. fila Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay fashilinayso shirka uu Turkigu garwadeenka ka yahay iyada oo siyaasiyiin horey fila Soomaaliya ula heshiiyey oo hogaaminaya Cumar Cabdirashiid dabacday inay daaqada ka soo geliso waxayna la kulmeen beesha caalamka iyagoo u gudbiyey ama sheegay inay hayaan moodhal cusub oo doorasho oo lagu heshiin karo labada dhinacna ay isku keeni karaan. maxay tahay ujeedada ay ka leedahay fila Soomaaliya arrintan? barnaamijka xulashada wararka ayaan idinku haynaa idinku soo gudbinaynaa. fadlan daawada haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada kusoo biir channelka subscribe noo saar muuqaalka like garee oo share garee. aan ku bilownay maanta waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ka furmay shirkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda kala guurka ee dalka iyadoo oo shirka uu garwadeenka ahaa dalka Turkiga sidoo kalena ay joogeen dalalka Mareykanka, Midowga Yurub iyo qaramada midoobay. shirkan ayaa waxaa ka qayb galay laba garab oo kala duwan oo dhinaca mucaaradka iyo dowladda xilgaarsiinta ee hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaca mucaaradka waxaa lala kulmay laba garab oo kala ah garab uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta la soo baxay awood cusub oo dhinaca guddigii isaga ka socday ay ahaayeen guddi miisaan culus leh runtii si weyn uga duwanaa mucaaradka kale ee la kulmay beesha caalamka. golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ay ku jiraan Jubbaland iyo Puntland iyo madasha samata bixinta hase ahaatee waxay ahaayeen dhinaca samata bixinta oo kaliya ayaa iyagana lala kulmay. shirka oo maalintiisa koowaad ahayd ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayay ama ay ahaayeen guddiyo farsamo oo ay dhinacyadu iska saareen kaasi oo loogu talagalay in ay diyaariyaan ajendayaasha iyo waxyaabaha aadka la isugu hayo oo ay ka mid yihiin nooca doorashada oo ay ka mid yihiin marxaladda kala guurka sida loo maareyn karo oo ay ka mid yihiin xaaladaha taagan iyo caqabadaha jira sida loo wajahayo. beesha caalamka oo ugu horeeyaan dowladaha Mareykanka, Midowga Yurub, Turkida iyo sidoo oo kale qaramada midoobay dhinac walba waa ay la kulmayeen. qolo kastana waxa ay siinayeen tixgelintooda ku saabsan sida ay u arkaan xaaladda iyo marxaladan cusub sida looga guuri karo. dhinaca dowladda waxaa hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax iyo mas-uuliyiin kale oo badan. hase ahaatee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu la soo baxay awood runtii lala yaabay iyadoo oo dad badani ay sheegeen inuu soo bandhigay guddiga uu u soo diray ee ku matalayay shirka inuu ahaa guddi runtii aad u sarreeya. waxaa u matalayay 5 xubnood oo ka kala socda beelaha kala duwan ee Soomaalida. waxaa ku jiray wasiirkii hore ee arrimaha dibadda oo lagu magacaabo Maxamed Cabdirasaaq. sidoo kale waxaa ka socday dhinaca Farmaajo xildhibaan Xasan Cabdinuur oo isagu ka soo jeeda Koonfur Galbeed. sidoo kale waxaa ku jiray Siciid Xuseen Ciid oo isagana ka soo jeeda beelaha shanaad runtiina ka mid ahaa horey u soo noqday wasiirkii wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha Soomaaliya. xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire ayaa isagana ka mid ahaa. sidoo kale waxaa ka mid ahaa Cabdicasiis Ashkir oo isagana la taliye hore u soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Abukaate Xuseen Cabdi Cilmi ayaa isagana waxa uu ka mid ahaa guddiga farsamada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi ayaa ka mid ahaa. rag badan oo wada xul ah ayuu runtii usoo diray shirka iyo wada hadallada u dhexeeyay beesha caalamka, mucaaradka iyo dowladda. haddii aan intaasi kaga nimaadno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Jubbaland iyo Puntland waxa ay yiraahdeen annaga shirka kama qayb galayno waxayna keeneen hal shardi oo ah in aysan ku kalsooneyn shirkan uu garwadeenka ka yahay dowladda Turkiga ay garwadeenka tahay taasi oo si weyn ay uga caroodeen Turkida. waxay sheegeen in Turkigu uusan marnaba dhexdhexaad ka ahayn arrimaha Soomaaliya sidaas daraadeed aysan ku kalsoonaan karin shir uu Turkigu uu garwadeen ka yahay.
hase ahaatee ay imanayaan shirarka dambe oo loo ballamay maalinta khamiista ee soo socota oo iyadana ay is arki doonaan dhammaan madaxda iyo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya, madaxdii hore dalka soo martay, mucaarad iyo maxaafid, beesha caalamka, kulli la isu wada tegi doono inay kasoo qayb geli doonaan ayay sheegeen, laakiin lama yaqaano waxa ay la imaan doonaan iyo aragtida ay keeni doonaan shirka, inkasta oo golaha mustaqbalka ay ku jiraan oo haddaba rag ka tirsan isku aragti ay yihiin ay shirka joogaan oo ay fadhiyaan, lagana yaabo in ay inta badan ay maaragtay doodoodu ay xaggaasi taalo. sidoo kale maanta xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu doonayay inuu fashiliyo shirka si loogu kala tago, isagoo oo dalbaday in laga soo qayb geliyo rag uu hogaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Shariif Sakiin oo Baydhabo kusoo fashilmay, iyo waliba gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal oo isagana safka lafta gareen ah. raggaasi oo horey fila Soomaaliya ula heshiiyey lana qaatay inay doorasho qof iyo cod ah ay tartan la galaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo nooca doorasho ee xasan sheekh maxamuud wato sheegay inay hore ugu qanceen, ayaa hadda waxa ay doonayaan in laga qayb geliyo shirarka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba mucaaradka, taasi oo dad badan fajicisa ku noqotay, beesha caalamkana ay aad runtii ay ula yaabeen. hase ahaatee beesha caalamka waxa ay u sheegeen in arrintaasi ay u baahan yihiin inay dib ay maaragtay ay u celiyaan adoo dhinacyada kala duwan inay u bandhigaan arrintaasi inay u baahan yihiin, iyaga oo waliba qoladan uu hogaaminayo Cumar Cabdirashiid ay sheegeen inay hayaan nooc doorasho oo la isku raaci karo oo dalka laga qaban karo. hase ahaatee arrintaasi ayaa dhinaca mucaaradka iyo dowladaha kale ee dhexdhexaadinta wadaba waxay u arkeen in ay tahay arrin lagu fashilinayo shirka oo la doonayo in shirka wax natiijo ah aysan ka soo bixin. xasan sheekh maxamuud ayaa ku adkeysanaya in laga qayb geliyo raggaasi, loona baahan yahay in ay shirka tagaan, iyaguna wixii aragtiya ee qabaan ay maaragtay gudbiyaan oo ay dhiibtaan si qolo waliba wixii fikir ah ee ay wadato loo wada arko, caalamkuna uu wada ogaado. xasan sheekh maxamuudna taageero weyn ay raggan uu ka haystaa, taasaana keenaysa inuu ku gorgortamo oo uu doonayo inuu soo fariisiyo miiska beesha caalamka u tuso in aysan jirin mucaarad isku mowqif ah oo hal dhinac wax ka wada ama hal dhinac wax u wada ama hal moodal oo doorasho haysta. maadaama isagu uu hal moodal doorasho uu haysto, wuxuu doonayaa inuu arko mucaarad aan waxba isku raacsanayn, wax kastana ku kala fog. waxaa ognahay maanta in golaha mustaqbalka gooni loola kulmay, sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo guddigiisana gooni loola kulmay, taasi oo iyada qudheeda dhaliilaha mucaaradka ay leeyihiin iyo mucaaradka oo inta badan aad moodid inaan is ogolayn, oo rag badan oo miisaan leh oo maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku jiro loo diidan yahay inay ka qayb galaan golaha mustaqbalka. shirka maalinta khamiista ayaa la isku soo noqon doonaa, hase ahaatee waxaa la sheegay inuusan wax natiijo ah laga gaarin maanta, dhinacyada gudiyada farsamada ee fariistay aysan wax natiijo ah ka gaarin, wax la isku raacayna haba yaraatee aysan jirin, cid isu soo dhawaatina aysan jirin, laakiin dib loo ballamay oo mar kale lagu ballamay maalinta khamiista ah maaragtay laga wada hadlo waxyaabaha la isku haayo. waxyaabaha diiradda la saari doono waxaa kamid doorashooyinka, waxaa kamid xilliga loo doorashada lagu qaban karo, waxaa kamid nooca doorashadu ay noqon karto, waxaa kamid arrimaha dastuurka oo sida wax laga yeeli doono oo xasan sheekh maxamuud bedelay, waxaa kamid oo iyadana ku jirta in jadwal rasmi ah loo sameeyo doorashada hadiiba lagu heshiiyo waaye. arrimahaasi oo dhan ayaa la kor istaagi doonaa oo lagu eegi doonaa oo lagu gorfayn doonaa haddii eebbe idmo, waxaana si dhow aan idinku soo gudbin doonaa haddii eebbe idmo xogahaasi iyo wixii la xiriiraba barnaamijyada dambe ee aad kala socotaan Wama TV. fadlan daawad haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada kusoo biir channelka, subscribe noo saar, muuqaalka like garee oo share garee.